السلام عليكم أبي ونافسن مال ونافسن وقت والبقى يفوتها ونافسن سودا وهذا أصحابتا كحيران يوتيوب كا سكي منهم سودا وهذا قعمة فرن قلبي فرن سودا وهذا وحنقعد صنع يا أصحابتا نوعشن فضلا إن نساكين سبسكرايب كا ونقعد شيء هو هرن ولا جوجلن وحنقعد صنعنا إيجانا سيدو كلاته لايك تا iyo qoraalka quruxda badan leh inay hoos noogu soo qoraan maanta amba caawa amba waqtiga doonto ha ku ahaato waxaan soo dooweynaa video cusub videogaas oo gabar Soomaaliyeed oo dhib sheeganayso aad u xanuun badan Soomaalidana waxa waaye qofka masaakiinka waa ku tuugtaan kan kale oo asigana dhibka badan leh oo wax yar la kor haysto waxa uu leeyahay waa xaajiga wiligiisa soo xigta tigna uu leeyahay waa xaajiga way xaajiga amba waa xaaji sida doonto u dheh qofka masaakiinka ah waxa waaye laba walaala ninkii lacag lahaa weyn walaalo dhaay leela marka balyana ku sii dheeraadeen waa gabar aad ka caawinayso bulshada Soomaaliyeed qayb kamid ah inta xumaysay waxaan leenahay iyagana wanaaga Allah ku saalayna wax kala ma dhahayn bal nala daawado waxay inta maxaa ogaaday inaan anoo 10 sano jira inaan lahayn hooyo aabo oo geed hoostiisa la iga soo qaaday markaas maxaan ku jira xaalad xun xuduntan oo igu taalay waan jawaana ku dhex jiray maamadaas aan iga soo bixisay dhibka igu xun maxaa waaye afar la saam xayleen gabadha wacashaa ali wacaana iskuul ablaan dhigi jiray dugsigana loo maraan dhameeyay awayday aada u naxariis badneed Allah u naxariista maamada soo karsay ciiga waa nasiib duniya Cabdullaahi noloshayda meel oo xanuun badan ku soo bilaabatay 1999 geed hoostiisa la iga soo qaaday sidaas hooyo aad u naxariis badan ahayd oo ii sheegay waalidnimada hooyo cunuga dareemaysa markii soo qaadayna meel naxariis badan ay geysay oo meel nadiif ah ay geysay hooyo magaceedna maxaa la dhahaa Faadima Cabdullaahi Xaaji hooyo maxaa dhimatay 2014 dhimatay xilligaas maxaa u martay hooyo cadowgayga inuu banaanka u soo baxay oo xanuun badan aan dareemay hooyo maxaa u dareemay markaas xilligaas oo xanuun badan aan dareemay oo nolol fiican aan ku noocdan dhibaato zaid u weyn aan galay wiila ina isjeclaanay guursaday hooyana ina dhimatay iyo waa u sheegay haddana wiilkii markii aan guursaday hooyo aabba malihiyaan dhahay waa is guursanay guriga igeystay nolol farxad ay ku soo dhaweeyay haddana gadaal dambe cidiisa 12 saac oo kale oo isoo weeray albaabka xoogaa igu soo gargaray waa orday waan furay waa xasuustaa taaraadiya dhageysanay albaabkii orday waan furay gadaal dambe markii aan furay ulul iyo maxalli soo qaatay waxyaabo markii aan furay dilka igu xanuun badnaa oo ahaa madaxa inay iga soo qabteen banaanka igu soo tuuray waraaqadii isiyeen hooyadii iskuul ablaan dhigi jiray dugsigana loo maraan dhameeyay awayday aada u naxariis badneed Allah u naxariista maamada soo karsay hooyo aad u wanaagsan ahayd جنب الله جنب الدوس الله كبشاره ولا أنت ما كون درس ولا أنت الله رواي جي قارنن قارنن maxaa igu qasabtay magaalada dhan aan liigu ogaaday ina kaamirada arkeeno oo daruftii heestaan ka hadlo ma la qarsan karo because maxaa noqday qof oo caan ah meel kasta wacasha laga leeyahay maxaa iiga daran markii qof weyn aan arko maamo aan arko ama walaal nin aan arko maxaa waa xalal xumo Soomaalidana waxa waaye waa dadka maaragtay ugu liitaan marka marka qaarkiis marka fiirisid
qofka masaakiinka waa ku tumanaynaa xaquuqdiisa meesha ka liita ayaa laga qabanayaa mar walba waxay ku leedahay 24 saac magacaan haboonayna lagu wacaya markii qof weyn maxaa iigu daray in hooyada iyo walaalkay u malaynayo dowra heli karta aniga meel waa xanuunsadaa qof daaweynayo waxaas male aniga keligeyga nala sii daawada murugay leedahay sheekadan wallaahi marka hadda gabar muslimada mustaqbalkeeda dad dheer ku jira ahay dhibaatadan ku noolaana isjeeda ummadda maxaa ka absalaha weligii guri ma haysto ya nolol fiican ku nool maxaa iyada waxay ummaddaas waxay soomaaliyeed isa kasta iskaga cabsalahay sidaana la daawateen abana la aragteen waa arrin muruga leh waa arrin aada looga naxo waa arrin aada looga qiiroodo waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed waa gabar yar 20 meelaas 2099 dhalatay waa qof aada u dayaciyar waa qof muftigeeda ee qaado lahayd mustaqbalkeeda iyo aytiinkeeda diyaarto leh ku jirto waaye waxyaalo aan fiicnayn dhagaheeda ku dhacaya maskaxiyan yaraanteedana ugu soo dhaceen haddana weli ido weyn daba joogaan waa xaafid qur-aan loo maray qur-aanka dhamaysay dadka waxaa waaye qofkii jaahiliga ahay wax ceynayo qof aqoon leh waa problem waxaan leenahay ilaahay ummaddiisa u gargaaro anagana hanoo gargaaro ummadeynana isku gargaarno xumaantana dadka aan ka reebno intaan ka reebi karno fadlan waxaan mar walba inga codsanayaa qof walba oo muslim dhibaataysan aragta inay garab qabato insha allah biidni illaahi kariim anigana intaas in ka badan buu